haddii aad tahay qof xog sameeyaha ama content creator ah oo inta badan xog ku baahiya social mediaha ama cameraman ah oo raba inuu duubo cod tayadiisu aad u sarreeyo marka uu muuqaal duubayo, qalabkan Zoom H8 Handy Sound Recorder waa qalabkaaga. Waxa uu kaa saacidayaa in aad cod nadiif ah oo professional ah aad duubato. Haddii aad ugu talagalayso inaad duubto music, haddii aad ku talagalayso inaad duubto cod adiga kaaga ah ama meel guda ku jira ama outdoor joog, ama sidoo kale aad duubayso podcast dhowr qof aad rabto inaad hal mar cod ka wada qabato. dabcan qalabkan Zoom H8 waxa uu qaataa 4 battery, wuxuu sidoo kale qaataa cable dab ah. intaana waxaa kuu sii dheer inuu leeyahay mountain loogu talagalay in aad tripod surto kadibna aad ka sii kala qaybiso microphone tiro badan oo aad codad ku soo qabsanayso. ilaa iyo 10 microphone ayuu qaadaa, laakiin sida caadiga ah 6 ayaa dhinacyada ka soo galaysa. sidoo kale waxa uu wataa 2 mic capsule oo loogu talagalay xagga sare in looga xiro. qalabkan sidaad u jeedo waxaa marka hore gala 4 battery sidaan kuu sheegay. waxa uu leeyahay memory card aad cod ku duuban karto. sidoo kale waxaa la socda oo ku yimaada 2 mic capsule oo loogu talagalay inay codka kuu qaadaan marka aad adiga iska duubayso ama aad qof si toos ah uga duubayso, haddii aadan rabin markaa inaad microphone ku xirto. dabcan labadan mic capsule waxaa loogu talagalay marna in 2 qof cod looga duubo, haddii uu hal qof yahayna midkan ayaad isticmaalaysaa. dabcan halkan waxaad ka maamulaysaa inputka codka soo galaya microphone-ka inta uu la eg yahay. haddii aad doonto oo meel sawaxan badan aad joogto, waad iska gaabinaysaa oo cod quality-giisu nadiif yahay ayaa kuu soo gelaya. haddii aad keligaa meel tahayna waad dheeraysan kartaa ilaa iyo 10 level ayuu leeyahay. levelka aad rabto in uu cod ahaan u xaroodo ayaad markaa geysanaysaa. dabcan qalabkan waxa uu sidoo kale leeyahay touch screen aad geysan karto moodka aad markaa ugu talagashay, haddii uu yahay mode podcast ah, mode music ah, ama sidoo kale mode aad ugu talagashay inaad bannaanka wax ku duubto. sidoo kale intaa marka laga soo tago waxyaabaha uu u gaarkaya waxaa ka mid ah inaad marba on ka dhigan karto ama off aad ka dhigan karto microphone-ka aad doonto. oo tusaale ahaan haddii aad 4 qof wax ka duubayso, 3 ka mid a ayaad off dhihi kartaa, mid ka midana on ayaad dhihi kartaa, oo codadkaa oo idil midba midka aad rabto ayuu sida kugu qabanayaa. qalabkan H8 Sound Recorder iyo qalabyada kaamirooyinkii codadka loogu talagalay oo idil oo si professional ah aad wax ugu samaysan karto, waxaa ka helaysaa Sanguni Electronics xarumahooda kala duwan ee magaalada Muqdisho, ama waxaad kala xiriiri kartaa nambarka shaashada kaaga muuqda, ama sidoo kale waxaad ka shopping garaysan kartaa www.sanguni.so. ugu dambeyntii, anigoo kaaga mahadcelina waqtiga qiimiga badan bixisa daawashada muuqaalkan. inta laga gaarayo muuqaalka xiba idankii nabadgelyo. laakiin intaana muuqaalka ka bixin, waa rajaynayaa inaad iga sugaysay in aan cod tijaabo ah ku duubo qalabkan si aad u ogaato tayada codkiisa inta ay gaarsiisan tahay. hadda sidaad u jeedo waxaa ii daaran capsule mic-ga, isaga ayaan ku duubayaa. codkan waa tijaabo, waa tijaabo, waa tijaabo. waa codka qaybtii ugu dambeysay oo aan ku tijaabinayno Zoom H8. dabcan codkan tayadiisa waad dareemi kartaa inuu cod nadiifa yahay maadaamaan afka u dhoweeyey, sidoo kalena aan isticmaalayo mic capsule-ka isaga ku yimaada ee halka qof loogu talagalay. haddii marka codkan uu nadiif yahay, waxay ku caddaynaysaa tayada qalabkan Zoom H8 uu leeyahay. ugu dambeyntii, anigoo kaaga mahadcelina waqtiga qiimiga badanaad ku bixisa daawashada muuqaalkan. inta laga gaarayo muuqaalka xiba idankii nabadgelyo. haddii aadan naga mid ahayn, nagu soo biir. halkan waa im252. wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa ilaa idinkii. nagu soo biir maanta. kanna waa Zoom H8.